kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan dowladda dalka turkiga ayaa soo bandhigtay qalab casriya oo si weyn looga qayliyey oo tiknolojiyadda casriga ee maanta la jaan qaadaya wadamo waaweyn oo caalamka ka tirsana qiil geliyey qalabkaanu muxuu yahay muxuu qabtaa dunida sida oo la jaan qaadaya iyo wadamo fara badan oo kiyo ugu jira mar un in ay gacanta ku dhigaan xubinta ugu dambaysa barnaamijkeena kooban ayaanu daawadayaal kusoo qaadan doonaa haddii aan la yidhaahdee hawdayma la'aanina balse marka hore aynu ku horreyna dalka syriya iyo weliba ruushka hay-ad taxriir ashaam ayaa lagu soo warramayaa haatan ruushku iyo wadamo kale oo waaweyn inay shukaansi kula jiraan oo ay doonayaan siday wada shaqayn iyo xiriir ay u yeelan lahaayeen waxaana la leeyahay mucaaradka syriya qabsaday waxa ay u dhaqmayaan iyagoo curdan ah sidii dowlad horay u jiri jirtay oo kale sida markaa kiyuga loogugu jiro oo loo doonayo cid walba in ay la shaqayso oo ay markaas ay wada shaqeeyaan annagoo og wadamada dunida ugu waaweyn inay u aqoonsan yihiin inay yihiin argagixiso haddana waxaa muuqata in saf loogugu jiro haddaba daawadayaal marka hore waxaan jeclahay inaan dalka syriya iyo wararkii u dambeeyey aynu isla eegno waxaynu la soconaa tan iyo intii ay xilka qabsadeen guulo waaweyn oo isdaba jooga inay gaareen haddana loo arko markaas in ay yihiin isbeddel rasmi ah oo syriya 54 sano weji cusub iyo taariikh cusub u yagleelay si kastaba ha ahaatee daawadayaal dalka ruushka ayaa lagu soo warramayaa haatan in ay markaas 9kii bisha waa maalintii asad uu dhacay waxay ahayd axad isniintii ayay la fadhiisteen oo markaas si dadban ay ula hadleen in ay markaas baysaskoodu xerooyinka militariga ay ku leeyihiin iyo kuwa navalkaba iyo airbasekoodaba inaan markaa dalka ruushka aan la weerarinin dhibaato loo geysanin xiriirka ayaga iyo hay-ad taxriir ashaamna markaas uu sii jiro uu sii hana qaado halkaasna howlihii ka dhexeeya syriya iyo weliba ruushka ay ka sii socdaan ciidanka mucaaradka ayaa qabsaday agagaarka ay baysaskan ku yaallaan oo dhan laakiin waxay sheegtay dowladda dalka ruushku inaan la burburinin lasoo weerarinin islamar ahaantaana si wanaagsan loola dhaqmay haatana ay doonayaan inay xiriirkoodii ay markaas sii dardargeliyaan wadamada kale ee aadka u daraynaya inay la soo xiriiraan oo la shaqeeyaan ayaa la sheegay inay ka mid yihiin wadanka iiraan weliba maraykanka oo la leeyahay daaha dabadiisa ayuu ku jiraa iyo weliba dalka bakistan oo ayaga laftigooda doonaya markaa xiriir dhaqaale inay la yeeshaan oo ay xiriir yeeshaan marka waxaa muuqata mucaaradkanu inuu markaas isbeddelka curtay uu ka faa'iidaysanayo haatanna uu ku jiro honeymoon xaaladdu say noqon doonto lama oga laakiin marka la eego tallaabooyinka ay qaadeen warbaahinta oo dhan waxay qoraysaa in ay syriya weji cusub maanta gashay oo kii asad ee keligataliska ahaa dhibaatada ku hayay tacadiyadaha u geystay jirdilka iyo maxaabiista iyo dilalka qorshaysan sida la sheegay fulinayay maanta inuu halkaa ka baxay haddaba mustaqbalka syriya sidee ayuu noqon doonaa ayay ka faalloodeen khubro fara badan oo bariga dhexe ka faalloota waxa ayna sheegeen civilization weyn inay syriya tahay isla mar ahaantaasna haddii ay dowladnimada iyo cadaaladda ay markaas ay yagleelaan iskuna hayaan dadka kala duwan ee syriya ku nool mustaqbalka syriya in uu ka wanaagsanaan doono kii hore hase yeeshee intuusan wanaaggaas uusan gaarinin uu markaas uusan caga dhiganin inay caqabado waaweyn oo markaa teesgareeya ama intixaamo ay soo mari doonaan waxayna ku xiran tahay kuwaas inay ogaga tilaabaan iyo waxa ay kaga jawaabaan hadday ahaan lahayd kobcinta dhaqaalaha isku haynta siyaasad fadhida amni la isku halayn karo iyo cadaalad iyo sinaan in la helo haddii arrimaha la helo waa waxa dowlad lagu yegleeli karo halista kale waxay ka imaanaysaa ayaa leeyahay israa'iil oo haatan markaa dhulkeedii syriya kusoo siqaysa haddaba hay-ad taxriir ashaam iyo maamulkan cusub ee kiyuga loogu jiro daawadayaal waynu arki doonaa haddii alla yidhaahdo wixii kusoo kordha barnaamijyadeena dambe waa idin soo dhaweynayaa mar kale haatana waxaynu aadaynaa qalabka casriga ee dowladda dalka turkigu ay soo bandhigtay ee caalamka oo dhan uu hadal hayee ka qaylisiyey wadamadii tiknolojiyada ku faari jiray inta ka horeysa sakana halkaa joojiyaha igu heedo myremed waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda soomaaliyeed waxay caan ku tahay
adeega hufanaanta iyo ammaanada kaana iska arag myremed waa gacanta dijitaalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store myremed app ku soo dhawaada وهاجاك دابوديل isku soo noqod wanaagsan toos hadii aynu haatan u aadno dalka Turkiga waxay soo bandhigeen qalabkan casriga ah horay ayuu jiri jiray noocan oo kale oo la yiraahdo Super Block 1 iyo 2 kan waxa uu leeyahay waxaas waxba kama jiraan waa kii u dambeeyay oo haatan under development ah oo wali aan si rasmi ah markaa loo hawlgelinin laakiin waxa qabadkiisa designka iyo sida uu sophisticated u yahay ayaa dunida soo jiitay oo bahda technology-da iyo arrimaha militariga ka faalooda si weyn ayay u hadal hayaan Turkiga ayaa lagu design gareeyay noociisa oo kalena ma jira waxyaalaha ay qabanayaan waa maxay waxaynu arkaynay Mareykanka oo qalabka cirka difaaca cirka siiyay Israa'iil dhawaan weerarkii Iran iyo wixii ka dambeeyayba karo waxaas oo dhan waxa la leeyahay hadii uusan aduusan ka horeynin wuu u dhigma ayaa la leeyahay dhinaca teknolojiyada farsamada iyo waliba sida ay u hawlgalayaan waa aragtaan kolaya dhan ayaa la soo bandhigay oo Turkigu waafaanaya dunida ayuuna la tartamaya haddaba hadii aynu eegno waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore marka ay noqoto dhinaca tayada iyo waliba meelaha uu ka hawlgalayo marka horeysa waan arkaynaa gaadiid buu saaran yahay waa mobile oo meeshii la rabo ayaa loo qaadi karaa waana sababta wadamo fara badan ay kiyuga ugu jiraan oo in loo soo xawili kara ay ogyihiin ay markaa ka faa'iideysan karaan ammaankooda ay ku ilaashan karaan haddii aynu eegno marka hore waxyaalaha uu samaynayo difaaca cirka weeye wax allaale iyo wixii airborne oo dhan wax allaale iyo wixii hawada soo gala nooc ay doonaan ha ahaadaane ayuu awood buuxa qalabkan u leeyahay hawada sare markaa inuu ku cuno oo halkaas uu ku baabi'iyo gebi ahaanba waayahay waxyaalaha kale uu samaynayo waxa uu awood u leeyahay inuu aircraftka la dagaalamo diyaaradaha dagaalka halista ah inuu markaa la dagaalamo gantaalkaas ayaa ka baxaya markii raadeerku uu qabto hawada sare ayuuna ku tegayaa hawada meesha uu yaalla dalka uu yaalla isagoon soo gelinin ayuuna digada wax ka dhigaya cruise missiles kula dagaalami karaa ka hortegi karaa air to ground missiles oo ah markaa gantaalada dhulka laga soo rido hadday gaadiid saarnaan lahayn iyo hadday dhulka hoostiisa ka soo baxayaan sida kuwa cirka oo kale ayuu uga hortegaya u joojin maayo ayaa la yiri oo markaas farsamadii u dambeysay iyo teknolojiyadii u dambeysay ayuu ku shaqaynaya waxaa intaas ku dheer droniska diyaaradaha cidu aysan wadinin ayaga laftigooda u aabayeeli maayo sakano ayay ku qaadanaysaa inuu markaa hawada sare ku cuno meesha lidada wax ka ridayana waa 180 kilomitir ayuu wax ka toogan karaa hawada wixii soo galana uu kaga hortegi karaa welina saas ay tahay lama dhamaystirin kii ka horreeyey 150 kilomitir buu ahaa oo la yidhaahdo Super Block 2 kana waa 3 weeye 180 kilomitir iyo plus ayuu markaa wax ka dili karaa raadeerkuna oo intaa ka badan buu wax ka soo qaban karaa oo 30 ayaa u dhaxaysa welina waa la sii casriyeynayaa wadamada doonaya inay qalabkan gacanta ku dhigaan ee kiyuga ku jira iyo soo saarka qalabkan casriga ayaa aad iyo aad u kala fogeeyaan leeyahay oo sanadii ayay qaadanaysaa in uu Turkigu baahida ka jawaabo hadda ka hor waxaynu ogeyn droonadii casriga uu soo saareeyay caalamka oo dhan inuu gaarsiiyey oo markaa tartan loogu jiray cid walba ay doonaysa inay iibsato qalabkan haatan uu soo bandhigay noociisa oo kale laba arag ayaa la leeyahay labana maqalin adduunkana uu ka yaabsaday dhinaca farsamada Turkigana waxaa lagu yaqaanaa ma sheegaan ilaa wuxuu ay gabagaboobaan oo ay soo bandhigaan sidaas ayay haatan u soo bandhigeen inkastoo weli wax yar ay u dhiman yihiin haddana Turkigu markay teknolojiyadan ay timaado iyo difaaca cirka oo diyaaradaha cruise missileska gantaalada laga soo rido dhulka hoostiisa ama gawaarida droniska waxaas oo dhan ayuu ka hortegayaa marka la isku soo xuraabiyo wax allaale iyo wixii airborne ah ee hawada soo gala iyo gantaalkan ballanka u yaalla waxa weeye hawada in lagu cuno Turkigu tillaabooyinka uu qaadaya dhinaca farsamada iyo teknolojiyada inaba caadi maaha qalabka militariga markay noqotana wadamada ugu horeeya ayuu ku jiraa waana wadanka labaad ee ugu tunka weyn
neto oo markaas awood fara badan leh isla mar ahaantaasna qalabkiisa baahi fara badan loo qabo daawadayaal wixii ku soo kordho xubintaas barnaamijyadeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa hase yeeshee haddii aadan brit somali tv ku xirayn waxaanu jeclayn inaan kugu dhiiragelino inaad rukumatisaan adiga waxba aysan kuu seeginin annaguna tiradiina iyo tayadiina aan ugu faano kaala iska arag shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 baloog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses. dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarasa quraan, supermarket, wiish xawaaro sare leh, kaamirooyinka ammaanka, CCTV, baakinka gawaarida, goobo carruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda.